بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. waxaa inoo suurto gashay inaan halkan ka bilowno kitaabka duruusu luuqa alcarabiya liqayri naatiqiina bihaa oo ciwaankiisu horteena ka muuqdo. buugga haddaan ciwaankiisa fahano waa duruus iyo casharo ku saabsan luuqadda carabiga. waa luuqa alcarabiya, waa luuqadda qur-aankeena kariimka ku qoran yahay. duruustaas luuqadda carabiga oo loogu talagalay liqayri naatiqiina biha, dadka aan u dhalan ama ku hadlin luuqadda carabiga. innaga soomaali ahaan umaynaan dhalan ama afkeena rasmiga maaha luuqa alcarabiya, marka waxaynu ka mid nahay dadka loogu talagalay buuggan duruusu luuqa alcarabiya liqayri naatiqiina biha. buuggan waxay dad badan u yaqaanaan Madina 1, Madina 2, Madina 3. waa 3 buug, 4na waa laga dhigaa, Madina 4na waa jira. marka Madina buuggan Madina loo yaqaanaa. marka buuggan aynu maanta bilaabayna waa buuggii koobaad, waa qaybtii koobaad, waa Madina 1. wuxuuna ka kooban yahay 123 page ama 120 page meelahaasu ka kooban yahay. waxaana ku yaala 23 cashar, 23 laysin oo cashar ayaa ku yaala. buuggan waxaa qoray ama alifay, halkan waxaan arkaynaa aljuz alawal waa qaybtii koobaad. waxaa qoray wadaadkan loo yaqaano doctor cabdiraxiim. doctor cabdiraxiim waxaan jecelahay haddaanan khaldanayn inuu asliyan hindi yahay oo asal ahaan uu ka soo jeedo waddanka hindiya. haddaanan khaldanayn saasaan jecelahay. wuxuu ku noolaa magaalada rasuulka Madiina almunawara. waa nin doctora aqoon-yahana ayuu ku noolaa. wuxuu ahaa macallin ka mid a macallimiinta dhiga jaamacatul islaamiya, jaamacadda ay culimo fara badan iyo dad fara badan ay ka aflixeen kana soo baxeen waxna ku barteen oo ku taala magaalada Madiina almunawara, magaalada rasuulka ayuu macallin ka ahaa. waxaa kadibna luuqaddu maadaama ay jaamacaddu ku baxdo luuqa alcarabiya oo dhammaan culumta lagu dhigto ay ku baxdo luuqadda carabiga, waana jaamacad looga yimaado dhammaan 5 qaaradoodba. aasiya waa looga yimaadaa, aasiyada fog. africa looga tagaa, yurub baa looga yimaadaa, latin america adduunkao dhan baa looga yimaadaa. waxaa iskugu yimaada malaayiin arday ah oo kala jinsi ah oo kala luuqad ah, laakiin ay walaalaysay kelimatu laa ilaaha illa allah oo wada cilmi doon ah. dadkaas oo dhan ee kala luuqadda ah oo ay Soomaalidu ka mid tahay, ay kala luuqadda ah, waxa loogu akhriyaa waa luuqa alcarabiya. arday fara badan oo Aasiya fog ka timid, qaarkood ay ka yimaadeen Yurub iyo Latin America, waxaa ku adkaaday luuqadda carabiga. kadibna wadaadkana wuxuu qoray buuggan oo ugu magac daray duruusu luuqa alcarabiya liqayri naatiqiina biha. duruus iyo casharo luuqadda carabiga ku saabsan oo loogu talagalay dadka aan ku hadlin luuqadda carabiga, ama Afrikaan ha noqdeen, ama Yurubyaan ha noqdeen, ama Aasiyaan, waxay doonaan ha noqdeen. marka buuggan waa buugga lagu baranayo ku hadalka iyo fahamka luuqadda carabiga. waa buug markaa muhiim u ah cid kastoo luuqadda carabiga baranaysa inay barato isaga. wuxuu qofka ka caawinayaa inuu luuqadda carabiga ku hadlo, qoro, labada way ka caawinaysaa. inaad ku hadashana way ka caawinaysaa, uu ka caawinayaa inaad qorto, oo haddaadan qori jirin aad qortoona uu ka caawinayaa. laakiin waa qofkii si wacan u dhigta way, macallin fiican waa hadduu baro. buuggan waa buug guud ahaan iska fudud. buuggu wuxuu ku dul socdaa qaab naxwo ahaan. weli buugga labaad iyo buugga labaad aakhirkiisa iyo buugga saddexaadna xitaa sarfiya balaaqa ku jira, laakiin siduu u badan yahay qaab naxwo ahaan baa ku dul socdaa. sidaa daraaddeed inagu carabiga meesha ku yaalo keliya akhriyi mayne, waxaan akhri doonaa oo insha allah saan horeba u sheegay aan akhriyi doonaa sharax aan ardadii hore ee buuggan dhigatana hadda dhigatana aan
ay igu barteen ama maxadka ay ku barteen oo aan u sharaxi jiray inaan sharaxno cashar walba ama laysin walba aan bilaabayno wuxuu ku saabsan yahay. haddana insha Allah waan idin dulgey doonaa buuggan markaa duruusu luuqa alcarabiya meeshan aad ka baranaysaan ee anigu aan ka hadlayo waa machadul bushra wuxuuna ka mid yahay muqararaadka machadul bushra. machadul bushra oo ah machad lagu barto dhammaan culumta shareecada oo ay ka mid tahay luuqadda carabigu waa buug markaa asal u ah oo asal u ah oo ka mid ah buugaagta iyo kutubta lagu baro ardayda lagu baro. runtii arday fara badan baa dhigata qayb baa buugga labaad maraysa qayb baa buugga koobaad maraysa. alxamdulilah waxaan rajaynayaa in arday kasta oo machadul bushra ka barato luuqadda carabiga inay ka aflixi doonaan ayagoo waxna akhriyi kara waxna qori doona insha Allah biidni illaahi almawla. waana dadaalaynaa waxaana codsanayaa guud ahaan ardayda cid kastoo wax ka baranaysa inay ayaguna dadaalaan oo buuggu wuxuu wataa tamaariin laga soo shaqaynayo in markaa la dadaalo ayaan codsan lahaa dhammaantiin aan wada dadaalo biidni illaahi almawlana waan dadaali doonaa. buuggu macadka waa fudud yahay laakiin waa qof iyo dadaalkii. haddaad ardaygan casharka isagu diyaarin oo aan dan ka lahayn iskana dhagaysta markaan aan faraha ka qaada daadhow casharku igu adag yahay isagaa sabab u ah. waa qof iyo dadaalkii waa qof iyo meeshuu isdhiga wey. marka insha Allah casharka buugga waan bilaabi doonaa. intan waa ciwaanka intaa markaan ka nimaadno halkan waxaa ku qoran ad-darsul awwal casharkii koobaad. saan arkayno halkan lambar baa ku qoran lambar 1 bayn alqawsayn bay ku jirtaa. lambar 1gaasi markaa waa lambar waa 1. halkan waxaan arkaynaa ad-darsu wa 10 casharkii al-awwal hore al-awwal waa 1 marka lambar 1 waa lambar kana waa xuruuf al-awwal waa xuruuf lambar 1 ah. marka macnaheedu waxa weeye ad-darsul awwal casharkii koobaad. haddaba casharka koobaad muxuu ku saabsan yahay? kelmadan haadaa buu ku saabsan yahay. haadaa maxay tahay? maxaa laga wadaa? haadaa markaan leenahay maxaa laga wadaa? halkan waxay noo qoreen haadaa baytun maxaa loola jeedaa? casharka markaasaynu u fahanno waxaan ina dul geynayaa meel aan inoogu qoray ama waraaqan inoogu diyaariyay insha Allah ayadoo PDF-na waan soo diri doonaa saad u dhageysataan groupka WhatsApp-ka insha Allah ku soo diri doonaa saad u akhrisataan ayaan idin dul geey doonaa. intaan waraaqda u gudbin magacaygu waa macallin Maxamed Cabdi Casiis halkana waa machadul bushra. waxaan horteena ka aragnaa waraaq inoogu qoran tahay ad-darsul awwal casharkii koobaad waa casharka koobaad aynu maanta bilaabayno. waxaa ku hoos qoran haadaa casharka koobaad wuxuu ku saabsan yahay haadaa maxaa laga wadaa markaa? haadaa waxa laga wadaa inaan fahanno Soomaa dabcan baan u malaynayaa waxa laga wadaa waa tan. haddaba haadaa haddaan u baahan tahay waa inta aan haylaadka saaray. haadaa ismun ishaara lilmufrad almudakkar alqariib alcaaqil wa ghayru caaqil. tacriifkiisu wakaa maxaa laga wadaa? haadaa horta waa ism ishaara waa ism wax lagu ishaaro wakaa. haadaa waa kan haadaa waa kan waa ism ishaara. ism ishaara markaa loo yaqaanaa. marka haadaa haddii lagu weydiiyo ism ishaara ama haddii lagu dhaho ism ishaara maxaa ka mid ah waxaad odhanaysaa haadaa. marka haadaa waa ism ishaara. haadaa waxaa loo isticmaalaa lilmufrad. mufrad waa hal qof oo keliya waa hal qof oo keliya. mufrad waa keli shay keliya. hadda tusaale ahaan hal nin halkan hadduu taagan yahay waa keligii. hal gabadh halkan haday taagan tahay waa keli. hal guri waa keli. hal gaari waa keli. hal mobile waa keli. marka lilmufrad waa keli. almudakkar waa lab. almudakkar waa lab. lab markaan leenahay waa maxay? waa wixii aan dumar ahayn dhadig aanan ahayn. dadka haddeer aniga hadlaya nin baan ahay lab baan ah. laga yaabaa adigu inaad tahay gabadh oo Zaynab iyo Faadimo iyo Xaliimo iyo Sahra lagu dhaho. marka adigu dhadig baad tahay ana lab baan ahay. marka haadaa waxaa loo isticmaalaa labko keliya raggo keliya looma isticmaalo dumar shaqo kuma leh. ogaada adigoo gabadh la hadlay haadaa ha odhan weligaa ha isku odhan iska ilaali. haadaa waxaa loo isticmaalaa waa hal nin oo keliya. waxyaabaha labka ah haddeer gurigaaga haddaad eegto gurigaaga alaabta taalla qaybna waa lab qaybna waa dhadig. markaan leenahay qaybna lab waa lab qaybna waa dhadig waxaan ka wadnaa magacyada. qaybna magacyadooda waa lab sida sariirtoo kale kuraastoo kale waa lab. qaybna waa dhadig
saacadaad hadda la xidhan yahay oo kale, saacadaad gacantaada ku xidhan tahay oo kale waa dhadig. marka talaagada guriga taalla ama ha noqoto ta dharka lagu dhaqo ama ha noqoto ta wax lagu qaboojiyo waa dhadig magaceedu. marka waxaan ka wadnaa hada waxa loo isticmaalo waa inay noqdo wax dhadig oo lab ah oo rag ah. alqariib ku dhow wax ka fogna looma isticmaalo ogow. waxaas waa inuu caaqil noqdaa, wax caqli leh. waxa caqliga leh maxaa laga wadaa? waa sida dadkii malaa'igta oo kale wixii caqli leh. wa qayru caaqil waxaan caqli lahayn waa loo isticmaala ayadan. waxaan caqliga lahayn waa maxay? doo waxaan caqliga lahayn oo dhan hadday tahay samaawaadka, hadday tahay dhulalka, cirka iyo dhulka iyo badda iyo bariga, dhirta, alaabta gawaarida, moobilada, alaabta guriga, wixii caqli leh waxay la tahay wixii caqli leh weyn garanayna. xitaa ariga iyo geel iyo looda xooluhu dhaqdaan, dadku dhaqdaan caqli ma leh. waxaa caqli leh oo kaliya waa dadkii malaa'igta. haddaba waxaan rabaa inaan isla fahnay baan u malaynayaa. hada maxaan u fahnay hadda? hada waxaan u fahnay inay tahay ismu ishaara loo isticmaala hal shay oo nin ah oo ku dhow ama caqli ha lahaado ama yuusan caqli lahaani. war hadda u fiirsada, laba shay, saddex shay, afar shay looma isticmaalo no. dumar looma isticmaalo no. wax fog, wax kaa fog oo kaa durugsan looma isticmaalo no. shaygaa loo isticmaalaya ama caqli ha lahaado ama yuusan caqli lahaani. saan tusaalaha ugu fahano, bal tusaalahan ila fiirsada. tusaalahan hadda ila fiirsanaa haylaadkaan saaray. caaqil intii caqli lahayd waa kan. haadaa kani rajulun waa nin. haadaa kani ustaadun waa macallin. haadaa kani rajulun waa nin. haadaa kani ustaadun waa macallin. ustaad halkaasi daal maaha waa daal. sorry iga raalli ahaada, waa daal kii dhibicda lahaa weeye, waa daal. caaqilku haadaa kani rajulun waa nin, waa hal nin oo keliya soo ma aragtid. haadaa kani ustaadun waa macallin, waa hal nin oo macallina. qayru caaqilku u fiirso. haadaa kani baabun waa albaab. guriga meherada ganacsiga soo albaab laga soo galo ma leh. haadaa kani baabun waa albaab, waa hal albaab oo keliya. haadaa kani miftaaxun waa fure, gawaarida fure le soo ma. guryaheena iyo qolalkan deganay, maqsinadeen deganay fure leeyihin soo ma. haadaa miftaaxun kan waa fure. marka waxaan arkaynaa haadaa shay caqli leh baa loo isticmaalay sida ninkan iyo macallinkan. shay aanan caqli lahayn baa loo isticmaalay sida nin, sida albaabkii furaha. وهكذا واساسو ميرن. لكن اوغادا waa inay kali noqdaa. sidoo kale waa inuu lab noqdaa, lab dhadig maya. sidoo kale waa inuu ku dhow yahay, wax ka fog maya. shaygaas ama shay caqli leh ha noqdo sida dadka oo kale ama qayru caaqil ha noqdo. dumarka looma isticmaalo. dumarka insha Allah waynu gaaraynaa. dumarka wax ismi ishaara kala loo isticmaalaa. marka kan waxaad isticmaalaysaa markaad doonayso inaad dhahdo kan markaad doonayso weeye. marka hada waa maxay? hada waa ism ishaara haye loo isticmaalo lilmufrad hal shay oo kaliya haye almudakkar oo laba haye alqariib ku dhow haye alcaaqil caqli leh wa qayru caaqil aan caqli lahayn. sagoo caaqila tusaale waa maxay? hada rajul kan waa nin, hada ustaad kan waa macallin. qayru caaqil waa maxay? hada baab kan waa albaab, hada miftaax kani waa fure. sidoo kale casharkeena koobaad waxaynu ku baranaynaa kelmadda ma. ما maxaa laga wadaa? ما waa xaraf ayadu soo ma aragtin, waa miim iyo alif. maadaas macnay leedahay, macnaheedu waa kan. ما waa ism istifhaam, waa ism wax la isku weydiiyo liqayri caaqil oo aan caqli lahayn. macnaha waa ism su'aalaho wixii aanan caqli lahayn ba markaad doonayso waxaan caqli lahayn inaad qofka weydiiso. tusaalahan si waxaan ugu fahmaynaaye, bal tusaalahan u fiirso. amthila ma hada kan waa kuma. markaasaa tiri hada kitaabun kan waa kitaab. ma hada kan waa kuma. hada qalamun kan waa qalin. haddaba waxaan rabaa maada waa su'aal. su-aashaasi waa liqayri alcaaqil, waxaanan caqli lahayn baa loo isticmaalaa. markaad doonaysa war waxan waa maxay? waxan waa mobile. kani waa maxay? waa gaadhi. kani waa maxay? waa fure. kani waa maxay? waa albaab. kani waa maxay? waa guri. kani waa maxay? waa kitaab. kani waa maxay? waa qalin. waxaan caqli lahayn baa loo isticmaalaa. marka su'aal baad waxbaad ku weydiinaysaa weeye. ما بيا اسم استفهام ويه لغير العاقل. شيء أنا عقل لهين بالله استعماله. أنا عقل لهين وي شيء عقل لمثل الله استعمال. أمثلة ما هذا كان واكما. هذا كتاب كان واكتاب. ما هذا كان واكما. هذا قلم كان واقلم.
sidoo kale casharka koobaad waxaynu ku baranaynaa ahaada waa maxay ahaada wax kala ma ahe haadaa oo hamse laga hormariyey weeye hamsa laga hormariyey maxay noqotay ahaada hamsadii waa tan haddaynu haddana hamsada meesha ka taatirno haadaa bay noqonaysaa soo ma aragtid haadaa marka hamsa laga hormariyey ahaada macnihii haddaba wuu isbedelay hamsadan waxbay soo kordhisay hamsadan miyaa hamsatul istifhaam baa loo yaqaana waa su'aal waxay la macno tahay adoo qof ku dhaha ilmahan maadigaa dhalay gaarigan maadigaa leh gurigan maadigaa leh mobeelkan maadigaa leh saacadan maadigaa leh adoo qof ku dhahay lamid tahay marka waa hamsatul istifhaam waa su'aal xarfun waa xaraf jawaabuhu jawaabtiisu ay noqoto nacam haa ama laa aw amase laa maya waa xaraf ay jawaabtiisu noqoto haa ama maya tusaale adiga iyo ilmaha dhashay oo isla socdo qof ka hor yimid markaasuu ku yiri ilmahani maadiga dhalay ahada waladuka kana ilmahaagiiba hal qodob baa ku banaan oo inaad dhahdo haa ama maya nacam ama laa haa aniga dhalay ama maya anigu ma dhalin laakiin walaalkay baa dhalay iyo eedaday baa dhashay iyo habreer baan u ahayo adeer baan u ahayo waxa laga ma rabo marka haddii hamsadan wax lagu weydiiyo waa hamsatul istifhaam baa loo yaqaanayo waa xaraf ay jawaabtiisu tahay nacam haa aw laa ama maya haa bay noqotaa ama maya noqotaa amthila tusaalooyinkoodii waa kuwan ahaadaa qalamun kanima qalin baa qof baa kugu yidhi war kanima qalin baa markaasaa ti nacam haa haadaa qalamun kan waa qalin ahaadaa rajulun kanima nin baa laa baa tidhi haadaa waladun kani waa ilmo soo ma aragtid marka ahaada haddii wax lagugu weydiiyo ama haa baad odhanaysaa ama mayaad odhanaysaa weeye ahaadaa qalamun kanima qalin baa nacam haa haadaa qalamun kan waa qalin ahaadaa rajulun kanima nin baa laa maya haadaa kani waladun waa wiil soo ma aragtid ismi ishaari haadaa ahayd markii hamse laga hormariyey macnihii oo dhan inay bedeshay oo ay su'aal ka dhigtay casharka koobaad qodobka ku saabsan ugu dambeeya waxa weeye man haadaa man waa kuma haadaa kani waxaan doonaya inaan tilmaamo arday ma soo ma aragtan ma haadaa iyo man haadaa waa isku mid waxay ku kala duwayn oo kaliya waxa weeye ma maxaa loo isticmaalay soo liqayr caaqil loo ma isticmaalay mantani ayadu waa caaqil من هذا كان واكما من اسم استفهام وي للعاقل وحي عقل له بالله استعمالها تصالحان من هذا كان واكما هذا كان طبيب ودكتور دكتور كعادة جدك داوية من هذا كان واكما هذا مهندس كان وانجنير من هذا كان واكما هذا رجل كان وانن مركا من هذا يدنا واسم استفهام وسؤال لكن للعاقل شيء عقل له بالله استعماله مركا ما محل استعمالي لغير عاقل شيء عقل لهين من محل استعماله لعاقل شيء عقل لها بالله استعماله وي عشر كوبات كتاب كم الدين وان انت كساب سنيهاي وحو كساب سنيه هذا ما هذا أهذا يا من هذا بكساب سنيهاي وحان ربعين عشر كينا هذا بكل الله بنو اوكي درس الاول هذا هل كان وحان اركينا صور كان انا اركينا واغوري البابكي سوا كان لبا داقدود بوليه هذا كان بيت واغوري هذا كان بيت واغوري غوري واكن غوري با تلماميسا هذا كان بيت واغوري هل كان وحان كو ارغنا مساجد منارديسي له هذا كان مسجد ومساجد هذا كان كلمتها اسماء او دنبيسا دمان لبا دمتين بحركيسين توين بحركيسين بيت مسجد باب ودوي صوبتنا ان شاء الله وين قاعد دونا هذا كان مسجد ومساجد واكن مساجدك كان نركنا والباب هذا كان باب والباب هذا كان باب والباب هل كان حنركنا كتاب هذا كان كتاب وكتاب هذا كان كتاب وكتاب ساسات كودسا هل كان حنركنا وقلم واكن هذا قلم كان وقلم هذا قلم كان وقلم صور كان وحنا اركينا وافره فرها غوريغا ما فرا غار وخو دونا هنقدو هذا كان مفتاح وافره كاس وقلن هذا كان قلم وقلن كنا هذا مفتاح كان وافره هذا مفتاح كان وافره هل كان وحنا اركينا ميس وميس كحفيسده لا دغو هذا كان مكتب وميس حفيس هذا كان مكتب وميس اما ميس حفيس هذا كان مكتب وميس هل كان وحنا اركينا سرير
هذا كان سرير وسرير هذا كان سرير وسرير halkan waxaan arkaynaa waa kursi waa kursiga caadiga ah lagu fariisto هذا كان كرسي وكرسي هذا كان كرسي وكرسي وسغال شيء كو لabo saddex waa saddex adugu waa saddex mid saddex waa sagaal sagaal ka shay aad aragtaan macaaqil ba mise waa qeyru caaqil jawaabta ka jawaaba macaaqil ba mise waa qeyru caaqil كو labo saddex maxaa dhahdeen sagaalku waa qeyru caaqil لأن هل قف عقل هل شيء عقل لما كتشرا قرب عقل ملاية مايا مساجدكم ملاية مايا البابكم ملاية مايا كتابكم ملاية مايا قلنكم ملاية مايا فروه ملاية مايا ميسكم ملاية مايا سريرت عقل ملاية مايا كرسيكم ملاية مايا ما يدمان ملاية حتى بس سيدا ما أنت غير عاقلك الله استعمال هذا أي عاقلك الله استعمالك وهذا رجل هذا ولد هذا طبيب هذا مهندس أنا أورن كرتا haddaad u fiirsato dhammaan ashiyaadan waa mirmir soo ma aragtid hal guri hal masjid hal albaab soo ma aragtaan waa wada hal laana hada wansoni waa ism ishaara loo isticmaalo lilmufrad hal shay oo kaliya halka guri oo kaliya halka masjid oo kaliya waana mudakkar dhammaan kuwan waa wada mudakkar markaan leenahay waa mudakkar nin ma aha macnaheedu waxa weeye magacooda magac nin oo kala ah magacooda magaci rag oo kala ah dhamaanto waa wada sidaas sidoo kale way ku wada dhow yihiin hada kan bad oranaysa kan markaad macnaynayso hada kan bad oranaysa weeye sidoo kale intan waa wada qeyru caaqilde mid caqli la kuma jiro ayagoo qeyru caaqilan insha Allah way soo socotaa weeye marka intaasaan insha Allah casharka ku joojinaynaa intaas insha Allah la soo akhriyo la soo diyaariyo waxaan jeclaan lahaa in taariifka la xifdiyo تعريف كما قرانيسان هذا اسم إشارة للمفرد المذكر القريب العاقل وغير عاقل إن لحفتيان عدسان لهاوي عاد بانو جعلان لها وانا كنت لنا إن لحفتيو سيدو كلام ماذا إن كان لحفتيو انت هاد رهيلات كان ساري ما اسم استفهام لغير عاقل إن لحفتيو سيدو كلام انت إن لحفتيو همزة الاستفهام حرف جوابه نعم أو لا سيدو كلام انت إن لحفتيو من اسم استفهام للعاقل انت إن لحفتيان جعلان لها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.